بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan ka hadli doonaa weedka ama qamadiga wuxuu ka mid yahay dalagyada ugu muhiimsan ee caalamka laga beerto marka waxaan u kala qaadi doonaa laba qaybood labadaas qaybood oo outline-kan ay ku cad marka koowaad waxaan ka hadli doonaa muxuu yahay qamadi iyo taariikhda qamadigu maxay tahay waa cashirkanaga koowaad cashirkanaga labaadna wuxuu noqon doonaa cultural practice of wheat ama hab beerashada qamadiga iyo isticmaalkeeda iyo conclusion-ka oo ah in la soo gaabiyo waxyaabihii aanu ka hadlaynay marka muxuu yahay qamadiga waxa waaye grass laga beerto adduunka waxaana la beertaa seedkiisa oo macnaha waxa waaye geedaha waxay u kala baxaan geed seedkiisa la beerto iyo geed laantiisa la beerto marka kan waa seedkiisa la beertaa wuxuu ku jira cereal grainska ama qoyskaas uu ka tirsan yahay waa worldwide stable foodka ama waxyaabaha adduunka ugu isticmaalka badan uu ka mid yahay wuxuu leeyahay many species marka oo species badan uu kala leeyahay laakiin annaga hadda waxaan ka hadli doonaa guud ahaan asaga muxuu yahay waxyaabo waxaa la jira uu la falgalo oo genes kale oo ku darsamaa jirto laakiin hadda anagu taas kama hadli doono waa kana asagoo baxaya iyo asagoo mirihii ay ku jiraan qoloftoodii iyadoo laga saaray marka waxaan ka hadlaynaa marka history of wheat ama taariikhda qamadiga marka qamadiga taariikh ahaan waxaa la xanaanaystay ama la bartay in la xanaanaysto 10,000 oo sano ka hor origin ahaan wuxuu ka soo jeedaa southwest Turkey ama galbeedka koonfureed ee Turkiga ka soo jeeda ama koonfur galbeed Turkiga marka waxaa meeshaas lagu magacaabaa Incon marka generally marka wuxuu yahay waxa waaye waa diploid ama hal dhinac waa hal qalbac contain two cities on chromosomeskiisu marka noocyada waxaanay ka kooban yihiin marka waxa waaye xilligaasana la domesticate gareystay oo la xanaanaystay intaas marka waxaan kusoo koobaynaa cashirkii qaybteenii koobaad intaas ayay ku eg tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته